السلام عليكم ورحمة الله. waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa 10 waxyaabood oo haddii aad samayso sabab u noqon kara in Allah ku siiyo cimri dheer. marka hore fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkeena lana wadaag saaxiibada. inkastoo ilaahay qof walba oo dunida imaanaya u qadaray cimri uu gaarayo, haddana waxaa dadka qaarkood oo Alle cimri dheer siiyay soo tabiyeen sababaha ay u maleynayaan in cimriga dheer Rabbi ugu manaystay. haddaba waxaan halkan kusoo gudbinaynaa 10 arrimood oo sabab u noqon kara in cimrigaagu dheeraado. dabcan waa haddii Rabbi kuu qadaree. qodobka koobaad, cibaado suuban. mar walba oo cibaadadaadu badato waxaa macquul ah in Rabbi ku gaarsiiyo cimri ama da' weyn adiga oo waliba aan xusuustaadu lumaynin. waxaa jira dadka qaar marka da'doodu weynaato asaasaqa ama lumiya caqliga iyo dareenka wax kala garashada. dadka cibaadada badan waxaa la isku raacay in si kastoo ay da'doodu u weynaato aysan dareenkoodu lumin. qodobka labaad, jimicsi. samee jimicsi joogto ah haba yaraado haddii uu rabo. dadka jimicsada waxaa jirkooda u samaysma difaac, iyadoo sidoo kale ku yaraado fursado xanuuno badan ugu dhici karaan. si kastoo aad u mashquulsan tahay, haddii aad maalintii samayso ugu yaraan 20 daqiiqo oo jimicsi ah, wuxuu jirkaagu lumin doonaa saliid badan oo waxyeelo ku gaarsiin karta. haddaba ka warqab jimicsiga noocyadiisa kala duwan. Soomaalidu hore waxaa jimicsi ugu filnaa socodka iyo shaqada baadiyaha, laakiin waayadan dambe oo magaalooyinka la yimid waxaa moodaa in halis badan soo food saarayso dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan socod la'aan, iyadoo meelo aan fogeyn xataa loo raacayo gawaari ama dhaweeyayaal aan waqti badan qaadanayn. qodobka saddexaad, cunto wanaagsan. cuntada wanaagsan waxay ka qayb qaadataa in qofku helo caafimaad ama fayaqab wanaagsan. mar walba oo aad cuntid cunto aan wanaagsanayn waxaad halis ugu jirtaa jirooyin fara badan. haddaba qofka ku dadaala cuntooyin isku dheelitiran kuna badan yihiin kuwa dabiiciga ah ee aan soo marin warshadaha, waxaa kor u kacaya fursadaha Rabbi cimri dheer ku siin karo. tani waa sababta ay Soomaalidii hore ee cuni jirtay cuntooyinka dabiiciga ah ay uga cimri dheeraayeen dadka dambe ee hadda nool. qodobka afaraad, qaraabada xiriiri. xiriirinta qaraabada ayaa ka mid ah sababaha lagu helo cimriga dheer ee barakada leh. waxaa xadiis ka sugan suubanaha ku cad in qofka raba in loo ballaariyo risqigiisa loona dibdhigo cimrigiisa uu xiriiriyo qaraabada. qaraabadu ma laha mid dhow iyo mid soke. waa muhiim inaad ka warqabto ehelkaaga si ay baweyna kuu siiyo cimri dheer. qodobka shanaad, cafi dadka. cafintu dadka waxay dan ugu jirtaa qofka wax cafinaya laftirkiisa. waxaa iyana arrintaas u hoosgelaya inaadan dadka wax cuqdad ah u qaadin. ogsoonow in carada iyo cuqdadu keeni karto cimri degdeg. qodobka lixaad, horay u guurso. guurku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka ka fududeeya culaysyada badan ee nolosha ku soo wajaha. marnamo isku caafimaad ma noqon karaan qof lamaano leh iyo qof keli ah. qofka lamaanaha leh wuxuu haystaa meel uu ku qanciyo dareenka dhibka badan ee aadanaha guba marka uu keli yahay. sidaas darteed dadka keliga ah waxay halis ugu jiraan cudurro nafsiyan ah iyo kuwo caadi ah intaba, sida ay sheegayaan daraasado badan oo laga sameeyay arrimaha guurka. waana sababta suubanuhu dhalinta ugu booriyay inay guursadaan haddii ay awoodaan. qodobka toddobaad, ka fogow balwad oo idil. si Rabbi kuu siiyo caafimaad iyo cimri dheer, ha isticmaalin wax balwad ah sida qaad, sigaar, khamri iyo wixii la mid ah. xataa mararka qaar shaaha iyo qaxwaha ayaa la sheegaa in lagu tirin karo balwadaha saameynta ku yeesha caafimaadka qofka. qodobka sideedaad, murugada iska ilaali. isku day inaad iska ilaalisid murugada. kaalmayso mar walba samirka iyo salaada sida Eebba ku sheegay quraankiisa. haddii aad dareento inaysan murugadu kaa baaba'aynin, bedel oo ka wareeg meesha dhibaatadu kaa soo gaartay haddii aad awoodo. toobad weydiisiga Rabbi iyo adkaarta kale ee la akhriyo ayaa iyana sabab u noqon kara in murugadu ku dayso. qodobka sagaalaad, horay u kac horayna u seexo. horu kacu wuxuu qofka ka caawiyaa inuu helo waqti uu ku qabsan karo hawlaha maalinlaha ee hor yaala, taas oo ka caawinaysa inuu isku filnaansho gaaro. sidoo kale in qofku horay u seexdo waxay ka caawisaa inuu helo nasiino ku filan jirkiisa si uu caafimaadkiisu u wanaagsanaado. waxaa jirta xigmad oranaysa hor u seexashada iyo hor u kiciddu waxay qofka ka yeeshaa inuu noqdo mid caafimaad qaba, hodan ah, yacni mid qani ah. qodobka 10aad, dadka xasdin. xasadku wuxuu dilaa qofka wax xasdaya inta uusan gaarin kan la xasdayo. ha ka xasdin oo ha ka caroon waxa qofka Rabbi siiyay. u fur laabta oo duco ugu dar in Rabbi u siyaadiyo adigana wax la mid ah ama ka badan Alla ku siiyo. ogsoonow qofka wax xasdaya asaga ayaa dhib iskugu filan.
wuxuuna marka dambe u keeni karaa caafimaad darro ka dhalata culayska qofka waxasdaya dareemayo oo ugu dambeyn dili karta qofka waqti hore. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aadan subscribe dhihin hadda nagu caawi inaad channelkeena subscribe dhahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.